وحاكلا قفنا هينو محمد آدم خليف كل هو راس محسنات كل هو راس حشمة مدنات ومحيا لهويين كاس كفر حسيسي labo adeeg oo aad u muhiimsan ayaa maanta laga hirgeliyay cisbitaalka weyn ee magaalada Mandheera halkaasi oo ay maanta iskugu soo baxeen dhammaan saraakiisha dawladda countiga oo uu hogaaminayay Governor Maxamed Aadan Khaliif iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada labadaasi adeeg waxaa ka mid ah in maanta si rasmi ah daaha looga qaaday adeega caafimaadka ilkaha oo sida uu Governor Maxamed Aadan Khaliif sheegaya in ka badan 10 adeegyada caafimaadka afka oo kala duwan lagu sameyn doono qaybtaasi halka adeega labaad oo maanta laga hirgeliyay cisbitaalkaasi uu noqonayo in wixii dakhli ah oo ka soo baxo cisbitaalkaasi lagu celin doono isla cisbitaalka si loo fududeeyo adeegyada caafimaadka cisbitaalka Mandheera County Referral Hospital waa kana Governor Maxamed Khaliif oo luqadda Swahiliga noogu faahfaahinayo labadaasi adeegyada caafimaadka wax looga qabanayo wuxuuna sidoo kale gaafanaha sheegaya adeegyada kale ee caafimaadka oo si wacan uga socda cisbitaalka weyn ee magaalada Mandheera bill moja kazi yake ina kubalia hospitali ama the referral hospital ama sub county ama huko dispensary health centers kuchukua pesa na kutumia kwa kusaidia wananchi hapo hapo kwa sababu kutegemea tu shareable revenue ni ngumu. So we want to challenge the hospital management across. We will going to put in place the relevant committees and the management team in every referral and county sub-county hospitals. We need a proper managed health facilities that can meet the demands of Mandera County residents. Pia leo tulikutana kufungua kliniki ya meno. Mliona hiyo kliniki ama hamjaenda? Zamani tulikuwa tunafanya services mbili tu kwa hapa hospitali kuhusu maneno ya oral health. Sasa hizi tumeelezwa leo kwa hizo vifaa tulileta na hiyo nyumba tumejenga tutafanya zaidi ya services 10. So hakuna haja kwenda Nairobi tena kwa ajili ya meno. Governor Maxamed Aadan Khaliif wuxuu dadweynaha ugu baaqay in ay bukaanadooda keenaan cisbitaalka inta ay cisbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay ay lacagaha iskaga dhameyn lahaayeen wuxuuna sheegayaa in cisbitaalka dawladda laga helayo dawooyin ku filan bukaanada. Wananchi pia watembee hospitali. Wasiseme tu huko hakuna kitu. Kwanza wewe kuja angalia. Sawa sawa? Hii maneno ya denti tumeanza macho, maneno ya mambo ya macho pia tutashughulika siku karibu inshallah. Maneno ya lab ni hiyo. So usilete tu mtu ambaye amepata nin taaban kile halakeni. Soma ninki markuu roya ya hospitali kana soma marka khayr Allah hadinsiyo. saraakiisha kale ee dawladda iyo sidoo kale dadweynaha ayaa gaafanaha uga mahadnaqay adeegyada caafimaadka oo uu ku soo kordhiyay cisbitaalka weyn ee countiga waxaana hadalka ku hormarayo gudoomiyaha amniga countiga Mandheera Mr Henry Ochako. Kushukuru serikali ya Mandheera County kiongozwa na Mheshimiwa Governor Mohamed Adan Khaliif kwa ile kazi nzuri ambayo mmefanya. Tumetembea kuona hizi equipments ambao zimekuja hapa, siko modern equipments ambao zitawasaidia wakahaji na wale ambao watahitaji huduma ya kutengenezwa meno, wale ambao mnaishi hapa Mandheera. maanta waxaan ku farxaynaa meeshii ilkaha kulbagaar aan u ordi jirnay isbitaalka saano nin hebel hayanaadno meel hebel aan u orodno qofka Nairobi aan loo qaado afadaali alxamdulillah alshukru la tukungul waa ilaa meero Missouri waad ku mahadsantahay gafanayato Maxamed Aadan Khaliif midda kale waxaa jirto ku sii farxane sharci cusuban oo noo yeelin 12 sano iyo bar ama 13 oo madaxa sii gelin hayna sharci noo yeelin haddana maanta noo sheegtay waan ku faraxnay haddii aan hooyooyinka aan nahay sujuu hali awasay mimi sujui lakini kina mama sisi tumefurahi ya kuzindua hospitali ya meno
na kupatia sheria mpya kwa hospitali. Asante sana bwana gavana. Sisi kama wananchi tunataka jambo mpya ambao tunaletewa, ndio tunafurahi sana.